السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ميلك سجوكتان الله يدين بركيه إلهي سبحانه وتعالى هيدين عزيو وولالكين iyo kuuradii al-shifa ee aad ugu diyaariyay magaalada Minneapolis soo jeedaanba Allah idin sharfo halka waxa idin ka muuqato dalabaadkii ugu horeeyay oo aan hadda dhiibayo dalabaadkaas walaalo khayr badan baa soo dalbaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah u barakeeyo qof walbana oo clipka daawadan waxaan ka baryin inuu walaalihii u duceeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay u aqbalo in Ilaahay u barakeeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaragtay oo khayran Allah ka siiyo waxaan dalbanayaa in loo duceeyo walaalaha qaatay in Ilaahay ku caafiyo waxay ka kooban yihiin sida halkan aad uga jeedaan waa caleyntii gubka geedka sidriga loo yaqaano oo culimadu ay leeyihiin qofkii isticmaalo oo ku qubaysto 7 xabba intuu tumo 7 xabba ku qubaysta Ilaahay subhanahu wa ta'ala xanuunka waa ka qaadaya waxa kale oo la socdo oo qofku uu ku dari doona warqadihii quraanka warqadihii tahliisha warqadihii quraanka ee qornaa ee zacfaraanka ayaa la socdo warqadaha waxa laga yaabaa inuu qofku yiraahdo warqadahan maxay yihiin oo say yihiin waxaan rabaa marka hal xabba inaan tusaale yar idin ka siiyo insha Allah ta'ala intaan furo sifo aad u aragtaan oo qof walba maaragtay oo uga dhargo biidin Ilaahay ta'ala halka waxaad ka aragtaan waa quraanka iyo qoran warqadaha lagu sheegin warqada waa quraanka waa zacfaraan faatiha ka bilaabata ilaa aayadaha ruqyada iyo ducooyin baa ku jira insha Allah ta'ala marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan qof warkaba inuu caafimaad ku siiyo marka warqadan oo kale qofku wuxuu soo qaadaya caagad biyo ah midaal hadda sida tan oo kale halkan taalo maran intuu biyo ka buuxiyo buu ku ridaya warqad intuu dhuudhuubo oo yareeyo ama baaquli weyn buu qofku ku ridanayaa biyahaas kadibna kan oo tuman oo 7 xabba ah kan oo tuman oo 7 xabba ayuu ku sii dari doonaa markuu inta sameeyo kadib wuxuu ku sii daro doonaa zamzamka biyaha zamzamka biba shuriba wixii qofku uu cabo nabi sallallahu alayhi wasallam soo yiri inta marka qofku uu ku qubaysanaya waa 3 shay oo 3 maqbuul ah oo maaragtay 3 athar ku sugan oo kanoo sidrigi ama caleenti gobka kanoo warqadihii quraanka oo qoran iyo maa'u zamzam inta qofku markuu ku qubaysto wuxuu sameeynaya maaragtay subaxina uu ku qubaysan galabtina uu ku qubaysanaya ilmaha sasa kuwa hadal ka soo daahay kuwa maaragtay fudfudud waalidiinta xanuunsan ayin kaan oo qofku xanuun uu ka qabanayo uu ka cabanayo ay daawo u tahay insha Allah ta'ala sidoo kale waxa iyadana la socdo oo qofku isticmaalaya asal shifa asal organiga oo lambar ma sha Allah oo runaantii de garantiya biidin Ilaahay ta'ala la hubo oo aan ka soo gadano maxay ahaydey kambaniyada ugu waaweyn dalka aan ka keeno waliba meel ka baxsan dalka laga keeno oo garanti ma sha Allah qofku marka wuxuu sameeyaa markuu intan subaxii ku qubaysto habeenkii markuu qofku uu ku qubaysto oo qofku uu isticmaalo wuxuu ku sameeyaa malabkaas uu subaxii qaado habeenkiina qaado caloosho maran ayuu qofku subaxii qaado habeenkii qaado insha Allah ta'ala muxuu sameeyaa marka maxaa qofku ku sixiyo waxa ku sixiyo qofku markuu ku qubaysto warqadihii iyo quraankii iyo zamzamkii qofku habeenkii tin iyo cirib wuxuu marsanaya saliid barakasnad zaytun shifa saliid al-shifa oo aad marxaati ka tihiin caafimaadkeeda iyo khayrkeeda iyo wanaageeda iyo qofkii madax xanuunayo iyo hurdo la'aanta iyo dadka korka qalalo dad waxa jira korka oo daray noqdo oo marka qaar uu qarxaba ilmaha yar baa u badan dadka weyn way leeyihiin uu qarxaba marka qofku tin ilaa cirib buu marsanaya marka hurdu ka helaya madax xanuunkii ka kaxaynaysa caajiskii iyo walwalkii iyo kulaylkii korka ka hayo faraha badna zero ba ka dhigaysa jir qabo oo macaan bay ka dhigaysa sidoo kale kareem bay qofku u noqonaysa qofka marsada reer Minneapolis dad badan caana marsada waxay leeyihiin kareemkana maba rabnaba tan noo kareema marka kareem bay qofku u noqonaysa ur malaha waxba malaha sidoo kale marka dadka lafaha xanuunayaan oo lafa xanuunka iyo jajabka iyo maaragtay burburka faraha badan ka cabanayo wuxuu markaa marsanayaa saliidaas oo ama xabasuudada ama M1 marka hal qof baa uu la socdaa Black CD oo organic maaragtay oo from maaragtay Nairobi dadka qaarna waxay qaataan shifada waxaan ka wadaa massage-ka oo M1 marka inta qofku markuu isticmaalo waa qubayskii iyo cunitaankii iyo waliba cabitaankii oo zamzamka uu ku cabay intuu biyo badan ku darsaday quraankii uu cabaya kadib marka qofku wuxuu sameeyaa muddo wuxuu wadaya insha Allah ta'ala ilaa 3 bilood xanuunka ku hayay la shakka inuu ka zuulayo
xanuunkaa ku hayay inuu kaa zuulayo oo kaa tirtirmayo waa wax la hubo ilaahay iidankii. marka qof walbo oo maaragtay soo dalbada insha Allah tacaala waa loo diri doonaa. intan hadda aad arkaysaan waa Mareykan gudihiisa. ilaahayna waxaan ka baran subxaana wa tacaala inuu ilaahay ummadda dhammaan ku caafiyo. idinkana insha Allah tacaala u duceeya, aamiin u dhaha. ilaahayna ha idin xifdiyo meel kasta joogtaan. dalab wanaagsan insha Allah tacaala. lambarka shaashada ka muuqda ayaad ka soo dalban kartaan insha Allah tacaala. marka waa 6 shay. 6 shayna waa kuure, waa qubays iyo cabitaan iyo maxay ahayd cunitaan. xanuunkuna inta uun buu ka kooban yahay. marka Allah idin barakeeyo. wajazaakum Allahu khayr. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.